jidhka bini aadamka saan ogsoonnahay walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuray wuxuu u sameeyey markas ama center ama xarun buu u sameeyey xaruntaas ayaa u ah asaas u ah بصلاحها تصلح سائر الجسد وبفسادها تفسد سائر الجوارح حبنك إسقاء حقاقي ديسا أيا حبنها كلنا لها قاقان وبالتالي نلشنكو حقاقتا هدوها اللابنا حلابي ديسا حبنها كلنا واهلابان وبالتالي نلشنا واهلودا معناها زي ومعناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامه حديث النعمان بن بشير آخر كيس النبي كتلمامه صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وعد يربو نبي كتلمامه صلى الله عليه وسلم ومضغضة وحل إلى هذا وعدك هالمر أفكر لقلين كرو لعاللين كرو يعني وعد أدوير والنبي صلى الله عليه وسلم تشيركو كتشرا أدو هقاقو تشيرك انتي سكالة وهقاقية هدو هاللابانا تشيرك انتي سكالة وهاللابية وقلبك أبو النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أصدرات بأوحى يري الإمام ابن القيم عليه رحمة الله القلب ملك والجوارح جنوده قلبي هو بقر ومضحي وهو جانكي حبنهنا وعيدا كسوى أدي بقرك ومضحينه هجاجو عيدا كيس وحو فرا وحجاكس hadduu hallaabana ciidanka wax hallaysan buu faraa sidaas daraaddeed xubnuhu waxay ka amar qaataan qalbiga wixii ka soo fula ayay fuliyaan hadduu marka hagaagsan yahay de khayrun baa ka soo fulaya amarka ka imaanaya iyo nahyiga ka imaanaya waa wax fiican saasay xubnihii kala qaadanayaan saasuu ku hagaagaya jidhka intiisa hadduu hallaysan yahayna كل إناء بما فيه ينضح بالله تويل والبوحي كجر أمبو ديقاي وحمان تكجر تي أمبو حبناها كلا أمري ساسي مركا شركة انتي سكلكوها الله بي ألقى وحي نوغا موقضى مركا إني مهم تهي روح النولشيسة إنو قلبك آد عناية إيو اهتمام خاصة إنو منان خاصة وقلبك سكشقيو saas daraaddeed baa imada salafku waxay dhihi jireen shay aan ku dadaalay ma jiro sida aan ugu dadaalay qalbiganaga qalbiga islaaxintiisa ka warhayntiisa طاهرينتيسا نظيفينتيسا يعني انت ان دلال كبخني شيء كلون كبخني ما جرت وفعلا ومدن هي ان دلال انت كبدن لو بخيو صوبت وحويان سيده النصوص تلماميسو الله تبارك وتعالى ماشى وادونكيسا كفيرينيو وقلبك إلهي تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم وكن النبي يقولها صلوات ربي وسلام عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي تبارك وتعالى ما فيري يسوي الردينا يعني الصورة هذا مقروح سنتهي مفعول حنتهي مدحدحات باتهي إلهي ميزانكي صحبكما حسابته مقش الله تبارك وتعالى ما فيري يسيدوك لتشركينا يعني وحويان محوق بدن تهي ما تبرير تهي ما دير تهي ما قابن تهي إلهي أكتيس ميزانكيس اعتبار مليه لكن الله تبارك وتعالى وحو فيرنا يا قلوبتنا هي قلوبته وحي نشو أعماشا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ساس درادد القلوب محل نظر الله تبارك وتعالى من العبد وميش إلهي تبارك وتعالى أدون كيس كفيرنا
meeshaasi marka waxay u baahan tahay in aad iyo aad looga dadaalo la hagaajiyo la daahiriyo waad garanaysaan walaalayaal bini aadamka xubnihiisa xubin aan u baahnayn ma jiro in la daahiriyo xubin aan u baahnayn ma jiro in la nadiifiyo haddii aan la nadiifinina xubinku waa halaabaya waa uraya waa wasakhoobaya waa halaabaya marka dambe adinka arkay oo يعني wuxuu u baahan yahay inuu qabaysto jirkiisa inuu dhaqo wuxuu u baahan yahay ilkaha inuu cadayo wuxuu u baahan yahay timaha inuu hagaajiyo xubnaha dhammaan waxay u baahan yihiin in laga warhayo la nadiifiyo meeshii ugu muhiimsanayd jirka ayaa marka ka mudan oo uga baahi badan in laga warhayo oo mar walba la nadiifiyo khaasatan waxaa ku soo dhacaya qalbiga bini aadamka mawjada aad u fara badan oo kala gedisan oo dabaylaha ku dhacaya sida nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qalbigu sidii baal oo kale baalka shimbirta oo kale oo meel bannaan ka laalaada oo dabayluhu ay kolba dhinac u rogayaan tuqallibuha ar-riyah dabayshu kolba dhinac ay u rogayso bimacnaa mawjadaha ku imaanaya qalbiga baa aad u fara badan waxaa maraya wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ogyahay wuxuu u baahan yahay marka ruuxu inuu iska warhayo oo qalbiga nadiifiyo oo daahiriyo oo ka shaqeeyo oo baad mar walba u baahantahay xisaabiso oo waxaa kala gedisan uun waxa jirka iyo afka iyo xubnaha kale lagu daahiriyo maadada lagu daahiriyo mooye maado kale lagu daahiriya maadada islaaxinta unbaa kala duwan oo haddii jirka iyo xubnaha saabuun iyo shaamba iyo lagu nadiifiyo qalbiga wax kala lagu nadiifiya wax kala lagu islaaxiya oo maadada islaaxinta lagu hagaajiyo unbaa kala duwan taa macnaheedu marka waxay tilmaamaysaa ahamiyadda ay leedahay inuu ruuxu mar walba qalbigiisa ka warhayo oo uu hagaajiyo allah tabaaraka wa tacaala nimankii badar la soo qabsaday gaalada ahaa asradii badar allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi نبينا وحلقوا صلى الله عليه وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم كون الله سوق فاشو قال ذا وحاقوا شكتا حدو إلهي قلبي جينا وناكو أجيه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا قلبي جينا هدو الله خيري وناكو أجيه حولها اللي يدين كقاضي مدح فرشدة wax ka fiican buu ilaahay idinku bedelaya maxaa meesha mafhuum ku yahay in ya'lam illahu fi qulubikum sharran yani mafhuum mukhalafaha waxa weeye haddii ilaahay qalbigiina shar ku og yahayna dee markaa wixii la idinka qaaday wax ka fiican la idinku bedeli maayo marka qalbigaaga hadduu ilaahay wanaag iyo khayr ku og yahay wanaag buu ku siinaya laakiin qalbigaaga hadduu shar iyo balaayo ka buuxdo هذا مركز وحويان دب وين باكو هيستو داو بدن بعضو باهنت آيات كلا وكير بيجين لها تبارك وتعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم كواسي وكوسا إلى هاي الدونين إنه قلوب توضى الظاهرية الدون كانت دلني ما يكوليه آخرنا عذاب وين بيكوليه قلبي قضى إلهي مدمع من الدونين إنه الظاهرية الله تبارك وتعالى مركا قلوبتنا إلهي هينو الظاهرية هينو نظيفية وإلهي قلوبته هينو إصلاحية قرآن كريم كأه قلوبته بني آدم كأ وحكوشة الصفات آدو كالجدس إني كالدوانتهاي كل بإلهي التوفيق ليسي أضون كسوء وشقيه مركا الله فيري ويكلا بعيسى قلوب تقار كيد وحي كتل ما منتهي وقلب ميدة وقلب دنتي أو ميدة وتشد دنتي أو كلوة بمعنى وحويان ما ددي نلاشوا بمبجلين به قلوب تسواته وقلوب تا قال لماذا الشرك النفاق وكترن إيمانك جلين وقلب ميد أو كاس وأنا كربي كتل ما تبارك وتعالى قرآن الكريم كا وما يستوي الأحياء ولا الأموات مسنا كوا النول هي كوا ميت كا
الأحياء هم المؤمنون أهل الإيمان